Dooda ku aadan e-visaha ee Soomaaliya ma ahan mid dhibaato ku haysa shacabka Somaliland amaba ku ah. Haddana waa dooda ugu badan ee gudaha Somaliland haatan aad uga taagan. Arrimaha e-visa waxaa lagu soo rogay dhammaan dadka haysta baasaboorrada ajnabiga ah, ma ahan wax ku gaara dadka reer Somaliland. Haddii uu dareenka jira uu yahay mid u dhigaya arrin lagu dhibaataynayo keliya shacabka Somaliland, haddaba waa faham raqiis ah. Waayo dadka Somaliland waxay awoodaan inay arrintan e-visaha Soomaaliya ay kala mid noqdaan dadka kale ee Soomaaliyeed. Tusaale ahaan, shacabka Somaliland waxay qaadan karaan si fudud baasaboorka Soomaaliya oo ay xaq dhammaystiran u leeyihiin. Waxayna halkaa kaga maarmi doonaan dalabka e-visa oo ku waajiba qofka ajnabiga ah ama qofka Soomaaliyeed ee haysta baasaboorka ajnabiga ah. Laakiin waxaan marna isqaadan karin in Somaliland oo aan haatan aqoonsi dowlad madax bannaan haysan ay u fikirto si dal la mida Soomaaliya oo ka tirsan dowladaha la aqoonsan yahay ee caalamka. Somalilandna loo garwaaqsan yahay qayb ka mid ah Soomaaliya. Sidaa awgeed, Soomaaliya waxay xaq u leedahay inay maamusho hawadeeda, dhulkeeda iyo baddeeda si la mida dowladaha adduunka. Cidda aan aaminsanayn ama oggolayn inay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed ma ahan inay ka doodaan e-visaha lagu galayo Soomaaliya oo maba quseeyo sharcigan ogamana furna wax dooda. Waxayna dadka aaminsan inaanay muwaadiniin Soomaaliya ahayn u furan in loola macaamilo sida uu qabo sharciga dalkugalka Soomaaliya. Laakiin cidda aaminsan inay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed waxa ay si sahlan ku qaadan karaan sharciga iyo aqoonsiga Soomaaliyeed ayaga oo la siman shacabka kale ee Soomaaliyeed. Haddaba, waxaa meesha ku cad in dooda weyn ee ka socota gudaha Somaliland aanay ahayn dhib e-visaha Soomaaliya ka haysta shacabka Somaliland, ee waa mid caqabad ahaan safarrada siyaasiyiinta Somaliland haatan ka haysata e-visaha. Sidaa awgeed, siyaasiyiintu cabashadooda u gaarka ah waxa ay ku lifaaqayaan tan guud ee shacabka, iyagoo raba inay arrintan u dhigaan nacayb ay Soomaaliya u qabto dadka Somaliland. Laakiin ma ahan qaabkan ay siyaasiyiinta Somaliland ay u dhigayaan cabashadooda mid wax ka beddelaysa nidaamka e-visaha Soomaaliya. Oo waxaaba suuragal ah intaas beddelkeeda ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sii xoojiso barnaamijyadeeda dalkugalka oo ay soo rogto sharciyada gaadiidka dhulka iyo badda ee dhanka xuduudaha caalamiga ee ka soo gelaya guud ahaanba dalka Soomaaliya oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Sidaa ay maanta siyaasiyiinta Somaliland ku doodayaan ee ah waxaan dib u raadsanaynaa maamulkii hawadeenna ama inay hawada Somaliland ka madax bannaanaato Soomaaliya, waa iska hadal siyaasi ah oo weliba loogu sii been sheegayo shacabka Somaliland. Waayo Somaliland sida dhul ahaan ay isu beddeshay ama laba isugu qaybisay oo laba maamul ay hadda ka jiraan dhulkii gumaystaha uu Somaliland Britain u yaqaanay ayay hawa ahaanna isu beddelaysaa. Dacwad walba oo si caalami ah loo gudbiyo waxaa ka awood badan in dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta jirta la aqoonsan yahay, calankeeda buluugga ahna uu ka babanayo maanta gudaha dhulkii gumaystaha Ingiriiska ula baxay British Somaliland. Marka laba maamul oo isgarab yaalla oo mid uu haysto aqoonsiga dowladda dhexe, waa maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya, way adag tahay in la maquuniyo ama ay soo farageliyaan dowlado iyo ururo kale oo waaqica siyaasadeed ee Soomaaliya iska indhatiraan. Sida ugu macquulsan ee arrimahan hadda taagan ay madaxda Somaliland ugu xalheli karaan keliya waa wada hadal ay la galaan federaalka Soomaaliya. Halkaas ayaana micno u samayn karta xal u raadinta waxa maanta jira. Xusuusin yar oo kooban. 1991kii ayay Soomaaliya dal ahaan burburtay oo weliba ayadoo ahayd dal la aqoonsan yahay madax bannaanidiisa, haddana waxa ay lumisay Soomaaliya aqoonsigii caalamiga ahaa ee nidaam dowligeeda ay isku maamusho. Ha yeeshee dadaal badan kadib ayay dunida aqoonsatay Sebtembar 2012, Maraykankana aqoonsaday January 2013 in Soomaaliya ay tahay dowlad federaal ah. iyadoo ay madaxdii iyo nidaamyadii federaalka ay soo hogaaminayay dalka mid walba uu meesha ka baxayay isagoo u muuqda inuu guuldaraystay, haddana mid walba wuxuu keenayay marxalad laga sii wadi karo xaaladda
ilaa markii dambe lagu guulaystay in nidaamka federaalka Soomaaliya uu noqdo mid dunidu aqoonsan tahay lalana shaqayn karo dhan walba. Ilaa 1991kii dhanka kale, Somaliland waxay raadinaysay ahaanshaha dalka madax bannaan Soomaaliya, laakiin marna kuma aysan guulaysan inay hesho hal cod oo dowladaha dunida ah oo u aqoonsada dal ka madax bannaan Soomaaliya. Sababtuna waa inaysan siyaasiyiinteeda Somaliland la iman qorshe lagu iibin karo nidaam siyaasadeedkooda. 33 sano ee lasoo dhaafay oo ay shacabka Somaliland aaminsanaayeen inay yihiin dal ka madax bannaan guud ahaan Soomaaliya ama u dhigmaba Soomaaliya, lama samayn horumarro dawli ah oo wax ku ool ah. Ragga iyo xisbiyada soo hogaaminayay Somaliland ma diyaarin marna ma dhisin kaabayaashii dowladeed ee muhiimka u ahaa jiritaanka madaxa bannaan ee Somaliland ay yeelato. Madaxweyne kasta oo soo mara Somaliland halka loogu dhiibo maamulka ayaa inta uu sanado ku sii hayo haddana kan xiga ee la doorto uu ku wareejinayay. Marka laga reebo Muuse Bixi oo isaga madaxweyne cirra ku wareejiyay, Somaliland ka yartii Muuse isaga horey loogu wareejiyay. Ciidamo iyo shacab ka yar intii Muuse horey loogu dhiibay, weliba wareejiyay maamul siyaasad ahaan jahwareersan oo iska daa inuu xuquuq shacab iyo dowladeed raadiyay, xitaa aan lahayn jawi iyo awood uu isku difaaci karo jiritaan ahaan maanta. Nidaam loo sameeyay go'itaan oo laga sugayay inuu la yimaado sifaha dal buuxa oo haddana aan lahayn kaabayaashii asaasiga ahaa ee dowladnimo, iyo wax farqi ah oo weyn oo maanta ugu yaraan uu kaga duwan yahay dalka uu ka go'ayo oo ay ka dhacayaan dagaallo sokeeye gudihiisa, lahayn warshado adeegyo dowladeed oo dan guud ah, horumarro deegaan iyo ilbaxnimo siyaasadeed oo dheeri ah, midnimo shacab iyo hoggaan siyaasadeed oo suurageliyay jiritaan maamul buuxa oo ku taagan aragti furan oo dowladeed. Laakiin beddelkeeda aas looga dhigay wax walba oo jiritaanka maamulkaas ah in dadka lagu beero fikir nacayb ah oo ku aadan Soomaaliya. Waa waxa maanta Somaliland dhigay daruufahan ay sida adag u wajahayso. Sida la gudboon shacabka. In shacabka Somaliland ay joojiyaan madaxda iyo siyaasiyiinta ay qiirada beelaysan ku horboodayaan ee ay beddelkeeda xisaabiyaan waxtarka iyo tayada hogaamiyaashooda. Wax walba oo lagu khudbeeyana ay ka dhaliyaan su'aalo muhiim ah si aan loo musuqin garaadkooda bulsho iyo danahooda guud. 2. In shacabka Somaliland ay fahmaan in dowladnimadooda iyo ictiraafkooda lagu keeni karin nacaybka Soomaaliya oo la muujiyo ama la qariyo, ee dowladnimadooda ay ku xidhan tahay isla xisaabtanka iyo horumarinta danahooda guud, ayaga oo ku xisaabtamaya xitaa berri Soomaaliya inay hogaamiyaan ama ay wax la qaybsadaan. In shacabka Somaliland ay wax ka bartaan waxa ka dhacaya dunida iyo waxa ka dhacaya gudaha Somaliland, taas oo muhiim u noqonaysa in ay gaaraan ahdaaf badan oo la xiriirta waxa ay ayagu markaa damacinayaan.